saakay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland wasiirka deegaanka Puntland iyo anigoo wasiirka arrimaha gudaha aanu la kulannay waftigii dowladda Jarmalka ka joogay Puntland ee hogaaminaysay safiiradda dalka Jarmalka ee u fadhiya Soomaaliya waxaanuna si gaar ah kala hadalay waftigaas tan iyo shalaba wada hadallo badan kula jiray Puntland waxaanu saaka si gaar ah madaxweyne ku-xigeenka iyo wasaaraduhu ugala hadleen xaaladda abaarta ee ka jira Puntland iyo sidii wax looga qaban lahaa runtii xaaladaas oo hadda sidaad la wada socotaanba soo adkaanaysa dowladda Puntlandna ay dadaalo badan samaysay hadday tahay soo saaridda qayladhaanta iyo hadday tahay in dowladda Puntland laftigeedu samaysay ku talagal dhinaca biyo dhaaminta ah iyo qaybinta cuntada iyo xiriir badan oo lala sameeyay beesha caalamka iyo hay'adaha arrimaha bini'aadantinimada ka shaqeeya maantana safiiradda dalka Jarmalka iyo waftigeedana waxaanu kala hadalay sidii dowladda Jarmalka iyo hay'adaheedu ay qayb weyn uga qaadan lahaayeen sidii loo gaari lahaa dadka tabaalaysan ee dhanka abaaruhu saameeyeen khaasatan deegaanada fogfog gaariwaaga loo yaqaano inkastoo gaariwaagii hadda wax badan dowladda Puntland ka qabatay oo meelo badan jidadii la geeyay marka wuxuuna noogu soo dhamaaday kulan maaragtay wuxuu ahaa aad iyo aad runtii u wanaagsan xaaladana ay aad ula socdeen abaarta ee ka jira Puntland iyo guud ahaan Soomaaliyaba aad baa u mahadsantahay